insa marka beerka ka xanuunsan tahay waad ka dhaxbaxaysaa mar walba oo waxaad ka cararaysaa waxaan dheeriga ah yaad qabanaysid so waxaan dheeriga la qabanay wax ku qabto waa beerkaaga sadarteed beerkaaga hadda wax xanuunsan yahay ma qaban karay sadarteed ka dhex saaraya dadkii waad ka qoqoban tahay waad ka leexsanta meherad la fadhiyo oo cunto lagu cunayo ayaad soo galaysaa adoo gaajaysan cuntadii baad ka dalbanaysaa markaasaad meesha wada fiirinaysaa waxaad ka raadinaysaa meel keliga aad fariisatid haddaad ka weydid waxaa laga yaabaa inaad cuntadiiba ka tegtidba ama tiraahda tag away iga dhig maxaa kuu diidaya dadkaas bini'aadanka intaad la ag fariisatid oo wax la cuntid oo iswaraysataan oo sheekaysataan oo meesha aad ku damaashaadid kabacdi inaad meherada iskaga baxdid waa calaamada koowaad ee kuu sheegaysa inuusan beerkaagu uma wallahi caafimaad qabin xashad ma dhihi karo titor haddii dadka lagu hor cuni karin maxaa cabdulqaadir hadalkan mar hore waa la yiri mar labaadna waa tirahdeen maxaad adigu xishad u taqaanaa harta waa maxay diintaada waxay xishad ku fartay maxay noqonaysaa diintaada waxay ku fartay oo xishoodka ah maxaa lagu yiri ka xishood wixii xun wixii lagaa reebay oo xumaan wixii lagaa reebay xun so inaad bulshadaas meesha wax ku cunaysaa intaad hor fariisato wax la cuntid waa xunba maya sometimes waxaa dhacdaa marka waa hadda tusaale ahaan oo kale anaa bay igu dhacday anaa sameey macnaha maqaayadaa soo gala laakiin haddeertan wax wada cunkiyaa ka duunaa maqaayada dadka dhan way wada fadhiyeen wax ma aysan cunin anna inaa wax cunaa rabo waa iska sheekaysanayeen laakiin ahaa erayga waxaa qasab noqotay inaad tag away ku qaato haddaad beerka ka caafimaad qabtid dadka waxaad oran lahayd raalli ahaada halkan wax ma ku cuni karaa raalli ahaada halkan waxaan ku cunayahay laakiin haddaad beerka ka caafimaad qabinin wig ada cararaysa waa takooranta oo isla markiiba beerkaagu wuxuu kuu sheegayaa ma awoodi karaysid taas saa darteed markaad awoodi karaynin dee ma samayn kartid markaad samayn karayna dee waad ka tegaysaa maya erayaa dhahay hadda micnaha waxaa rabaa inaa xugmiso ilaan beerka kawaanki saarane aye eragaa dhaa waxay ahayd waxaa ku dhahay war yaa ila cunaayo soomaaliyaa wadahen ha taasna waa good yaa wax ila cunaya taasna waa good qofkii meesha lahaa waxaa dhahay niyahu waa qaldan tahay mar kastana waa sameysaa su-aashaas inaad dadka weyso waryaa wixii hadda ka taba beerkaaga iska fiiri adiguna beerkaaga iska fiiri haddaad ka aqbashay waxaan maya ani waa aqbalay sababta u aqbalay waxay ahayd 8 qofood oo meel wada fadhiso oo waxna aan cunayn waxna aan dalbanayn aku ag dalbada markaas waxaan ku dhahay saaxiibayaal haye maxay ahayd soo dhawaada inaan wax cunaan rabaa sheekay marka ayakana sheekay wateen adna geesaa ma helen meel kaloo gooni uga baxo so waxaa is dhaaniyo ayaki maadaama ee qabsadeen rag way la cuni lahayn ragga qaar waa malana laakiin cadayska asi ka timid ay ka baqeen saan uu qiyaas muhiimadu waxa weeyaan calaamada beerka markaad ka xanuunsanta ku tilmaamayso waxa weeye waa mar kastoo aad ogolaan isdhexgalka mar kastoo jirkaagu kuu diidayo bulshadan ka qayb qaado mar kastoo aad ka takooran tahay mar kastoo aad keligaa wax raadsanaysid mar kastoo aadan information la qaybsan karayn mar kastoo aadan ogaanaynin nolosha idin dhex taala mar kastoo aad qaabkaa tahay waa mar kastoo beerkaaga aad ka xanuunsan tahay khayr allah ku sii rabbi so calaamada kale ku xigta waxa weeyaan waa go'aan fariisinta taasna raggaas kale inkii go'aanka ahaa inaad fariisid
uusan absolutely kugu noqonayn wax fudud go-aankaad fulinaysaa waad yani go-aankii waad yani tusaale kale hadda gabar baad la sheekaysatay inaad guursatid baa rabtaa gabadhii baad u tagtay waxaad ku tiri walaa inaan ismehersanaa rabaa haye bay ku tiri markaas markii aad tiri waad ballantii qabataa tiri beeri ama beri dambe waxaad tiri adigu 3 bish oo kale waxaan la hadlayaa waalidkii waanu ku weydiisanayaa haye bay isku ogeydeen 5 saac kadib baad ku soo celisay markaas waxaad tiri walaalay maalinta 3 u kaadi wax kala soo baxay 10 inooga dhig markaas ugu diraaye 10 intaan la gaarinna 7 markay marayso ayaad gabadh isku dhacdeen kaasad ballantiina ka sashaxad ku tiri ballantii 7 bish ahayd ayadana waa ka baxa 14 markay marayso adii gabadhii way heshiiseen haddana raaligelin baad bixis markaasay kugu tiri ballantii 10 aad ka sashay goorma ayaad cusboonaysiin ama goorma ayaad noqonaysaa markaas aad ku tiri u kaadi balanta u kaadi 4 bilood oo kale ayaad sheekadiinni idinku sii qaadatay 5 bilood markaad sii maraysaan ayaa haddana waxaad tiri may hadeertaan wayn ismehersanaa markaas waxaa kugu tiri gabadhii kugu oraysa gabadhii kolley go-aanku aduu kaa dhammaadaa anigu mar walba qofkii diyaarka habaana otatar waxaa u malaynaya tiroonin aa soo wada marnee ma cuduray wada ahayd beer xanuun baa la yidhahda waxaas so beer xanuunka markaad beer ka xanuunsato maxaa kaloo ku garan karaysaa markaad haweeneydaad mehersanaysid waad keligaa xaruntii timaadid ciidana ka soo tagtid goobta aad timaadid keligaa soo soconaya goobtii yimid xaaskaagana waad ka soo tagtay macnaha waa ka cabsata may so waxay kuu sheegaysaa mar kastoo aad ka takooran tahay hawl adiga masiir kuu ah oo kuu wanaagsan ka cararkeeda beerkaaga la hadla go-aan qaadashadaada aad u xumaanaysa so go-aan xumada maxaa kaloo kamid ah ama maxaa kaloo go-aan xumada kamid ah maxaa kamid ah go-aan xumada oo kale qori baad iska qaadanaysaa qolo halkaan yaacayso meel u yaacayaan aada garanayn baad garabka qabsanaysaa 2 erey bay kuu sheegayaan waxay ku oranayaan ina hebel baad tahay ina faja dhugle 2 xaniyood bistooladle kaarabidoodle hadhowna adoo meyda lagu soo celinaya waxaad ku dhimatay iyo waxaad u dhimatay toonana garanayn go-aan xumo la dhaha maxaa kaloo la mid go-aan xumada adigoo aan santi isku furan ceebtaadan asturi karayn ayaa 2 qolo oo meel ay ka yimaadeen aadan garanaynin intay kuu dirbaantumaan ayaa waxay ku oranayaan ina xaniya ballaarne aroosi yaqaane kugu meherinay qalalow dushay kaa saarayaan mar allaale markii arooskii laga dareero ayay mawjad kugu furmaysaa ma adaa sameeyey miyaa lagu sameeyey ma lagula samayn doonaa ma keligaa samaysanaya may kula qaban doontaa yaa kaa furfuri doona xagee biri u kalnihin maxaad keeni ma uur bay yeelan meelmay dhali xagee ka timi maxaan iri haddaba nin reer laana hawshaadaad bilaabaysaa go-aan xumo markaad beerkaaga ka xanuunsan tahay ma awoodi karaysid inaad hawshaada masiirka ah go-aankeeda saldhigto fariisiso
موسى أودي كري إنه كوي هذا ستوب وروح على دلة في أرتيسان مركان كران كذا لا يهاي أيان إذين إيمان مركا يقول عاوية لكن هدرتان وحين وحوال دوين حوال بدي دوين سان وانا اجي موضع maxaa ku taqaanin marka wiilashiina markay aroosaan maxaa ku taqaanin waxaad ku taqaanin bisha hore dhaldhalaal bilaha ka dambeeyana dhakaa ka soo haraysa madaxweyn waa intaa leeg timo yucufa garririfa indhahoo gadgala stressa ku furmaya mas-uuliyadda fuusha markaas markuu kusoo ag istaaga waxaad odhanaysaa war heedhe kii aroosay soo adiga ma ahayn see ku dhici karaysaa anoo siin galayna kaa qurux badna imagine aniga doctorisimo maanta haddii kuwo reerala la soo ag istaajiyo subxaan allah waxaanu kala nahay digsi cusub iyo digsi gubtay kuwa badan reerale go-aan xumo beer xanuunka u keenaya daaqad baa laga tuura ama daaqad ba iska tuureen may nafaqadii laga qaata ma dhihi karna tore maxaa imaanaya marka beer xumo markaad go-aan xumo keentid de go-aan xumo markaad keentid tala xumay ku geynaysaa oo tala xumada maxay tahay imagine cabdulqaadir ka soo qaad adoo haddeer aroosay bacdi baro gabar dhalinyaro ah oo walaashaaya 28 da'da ka yar jirta oo bikri aad aroosad laba bil markaad sariirtii saarnayd bishii saddexaad ayaa waxaa soo qortay baterilow xagee aadin walciyaadu bilaahi xagee aadin hadday rag rabtaa stressna kuguma harsana oo mas-uuliyad kale ku saarnayd iyo wax soo kordhay ayaa ka sii weyn sax sababta guriga keedis baa lagaa sugaya gabar farxadeeda lagaa ilmaha waxbaa dusha kaa saar tii halkaan ahaydna waad gabta markaas waxaad u ordaysaa say ordaysaa gesges sida dameerki soo ordaa dameerku soo ordaa dameerku markuu orday surkuu laalaadiyaa dhulkuu eegaa suusa waxba u arkin meeshu doonu u jiiro waxba suusa u arkin meeshu rabo uga duso dantiisa dameer orday haddaa arti waad ka leexataatee haddii kale ku jiiraya waa meel walba inuu ka dusuu rabaa wiilkan yarka marka dhalinyarta mar alaala marka halkaan ku cidlooto mas-uuliyaddii kalena saaran tahay taas waaba gabdhihiina soomaaliyeed mid walba laga tegey mid walba keligeed ba meel fadhida waa la qabaa waa mucallaq qabir baa ku xiran waana laga tegey hadda kahor waa inay qisadii idiin sheegay midka waagii aan jarmalka soo galay xeryaha marka dhiibsi lagu jiray ayaa mid caddaan i weydiiyey wuxuu yidhi ma culture ba idiin tahay in ninka iyo naagtu kala socdaan aysan wada socon saasuu ii weydiiyey mogta haddana waa dambe ayuu ii yimid isagoo yaaban oo madaxa xogxogaya intay ku kacsan tahay oo meel xun ay ka marayso markaas waxaan ku yidhi what's wrong markaas wuxuu yidhi haweeney Soomaaliya ayaa waxa iga baryaysay 6 bilood haddee baryo midda ugu xun inaan fursad u suurtageliyo ninkeediina u keeno anna waxaan isiri saad u jecesha markaasaan u suurtageliyey buu markii aan u keenay haweeneydii keligeed baa magaalada aada ninkiina keligiisa magaalada aada wixii xaggee aadeen 6 bilood ay igu dhibtay jacayl maahan miyaa wuxuu culture miyaa ku wareera ninka caddaanka madaxa ku xanuunay haweeneydii 6 bilood ninka iga bari jirtay waan islahaa isagoo sidaad mar walba arki lahay isagoo saa u sidaa isagoo saa u sitaa ayuu mar walba soo geli doonaa xafiiskaaga ayuu soo geli doonaa xafiiskaaga keligiisa magaalada iska aadayadan keligeed ba adeeg doonataa waxma culturekiinaa buu yiri maxay tahay waxaan fooshoon
haddaan waagaa cilmiga lahaan lahaa u sheegi lahaa xoran lahaa beerkay ka xanuunsan yihin laakiin cilmiga waagaa ma lahayn miskiin yar baaska ah laakiin maanta waan ogaa sababta waa beer xanuun beer xanuun oo hadda ma waxaa leedahay inta badan oo 99 oo la kala qoran yahay waa beer xanuun aadoo la isqabal sheegi kari so go'aan soo ma arrintu maxay ku timi go'aan soo ma go'aan mas-uuliyadda go'aankana beerkaaga iskale siduu kuugu gooyo hadday sidaas caafimaad qaba ahayn dee beerkaaga ma caafimaad qabo siduu kuugu gooyo hadday caafimaad tahayna dee beerkaaga ku caafimaad qaba soo dhammaan dhakhtar ha la wada aado lama kala roono maxaa ka hadlayso go'aan ma ahayn waxay hadda i weydiisanayso go'aan maaha nacam go'aan iyo talo xumo labada natiijadii waayo go'aanka ka timid geedow walciyaad bila walaale hay waalin ilaahina waaliha iga barya maxaad qof walaalkaa muslim inuu waasho adigu hadeertaan subxaan allah walaal ma ilaahay kuma waalo annaguna ma waalin walaalaha kaloo dhegeysanayna ma waala marka cafali misaaxaad naga tahay aakhiro kuma haysano laakiin iska ilaali eryada ka dhacaya waxaas garbahaaga labada malagoo saaran aday kugu qorayaan not kuwa kor saaran iyo aniga toona qof walaalkaa inuu waalan yahay inaad u rajaysid iyadana waxa weeyaan walciyaad billaah adiga kaa go'aysaa iska ilaali marka waxaas kuu sheegaya meesha dhibkaagu ka jiro dhegeyso haddii aad dhegeysan karayna ifcal maa shiit waxaad jeceshahay allah ku barakay so haddii go'aankaagu uu saxan yahay oo uu fadhiyo beerkaagu caafimaad qaba haddii go'aankaagu uu khaldan yahay oo uusan saxsanayn beerkaagu ma caafimaad qabo I tell you reality walaal waxba kaa qarmay so wadayna so calaamada kale ku xigta madax xanuun iyo migraine dad 600 iyo meelaha aduu dad 700 ku dhow oo Soomaali ah ayaan 4 sano la soo dhaafay migraine ka daweeyay badda kaga dara badda migraine goonjab kama ho so waxaad haysataa madax xanuun waali ah ama waxaad haysataa migraine waxaad haysataa indhahaad problem ku haysataa waxay doonaan baa noqdaan awgin problem waxaad haysataa mar walba problemka indhaha waxaad kaloo haysataa markaas asma oxygentii ku dhibaysa haweenkii khaas dadka haweenkii seexa waxaad kaloo haysataa raggan ka hadlaya markaan xanuunada ku dhaca xaniyaha prostata kaadida kugu istaagta shahwada kaa imaan weyda ama buro kaa soo baxda feex so maxaad kaloo haysataa baabasiir maxaad kaloo haysanaysaa waxaad haysan karaysaa markaa jir angag yani seedaha ku istaaga garbaha ku istaaga yani meel walba ku adkaanaysa meel waxay ku noqonaysaa wax adag dayg bay ku noqonaysaa wax walba socodkaa kugu yaraanaya saa'id ayaad socodka u dhibsanaysaa saa'id hee ayaad socodka u dhibsanaysaa adiga socodka la isma kintusayo haddii socod lagu yiraahdo hunqaacaysaa so maxaad kaloo haysataa
kala goysyo xanuun kala goysyo xanuun soo laabista lugaha dhabarka meel walba kala goys ku yaala checkpoint jirkaaga meel kasta ku yaala kuna rasa ku kulaanaysa way ku ololeysaa so beerku shaqada ugu weyn oo qabto oo ku leeyahay markii laga reebo shaqada uu ka dhex qabtay dhiigaaga sifaynta iyo sunsaarista iyo halista ka ilaalinta shaqada ugu weyn oo ku qabto jirkaaga waxa waa go'aanka waa project manager wax allaala wax jirkaaga ka dhacay waa train stationka jirkaaga waa yani main train stationka main train stationka train kasta oo baxa meeshu ku soo xiranay sadarteed go'aanka isaga iska leh oo go'aan side so awoodu ku yeeshay marka maxay tahay awoodu ku yeeshay waxay tahay awood ugu weyn oo haysta waxay tahay waa sameeyaha waxa la wax chemical jirkaaga u baahan yahay chemicals ka jirkaaga u baahan yahay dan sameeyaha weyn wata awood ugu weyn marka waa haysto waxa la wixii la isku dardaraya jirkaaga wax laga soo saaraya product isaga ka masuula marka lagu darayo sababta loogu darayo halka lagaga darayo iyo sida loo samaynayo isaga ka masuula waa centralki waa xarunta ugu weyneed ee jirka oo dhan ku xirnaa markii laga hadlayo arrimaha noocaas so haddii markaa la duminayo iyo haddii la dhisayo haddii la nadiifinayo iyo haddii aan la nadiifinayn shaqadiisa wey waa shaqadiisa so calaamadahan ku daraya marka calaamadihii hore calaamadaha marka kuwa xanuunka wey marka hore waxaan kuu sheegay kuwaan xanuunka kuwa xanuunka meelaha jirkaa ku xanuunaya so meesha ugu horeysa horta jirkaa ku xanuunaya horta waa madax xanuun haddaad leedahay beerkaaga lahaw so haddaad madax xanuun saa'ida leedahay kugu soo laalaabta kaa tegaynin mar walba beerkaaga lahaw so maxaad kaloo haysataa indhihii oo noqonaya indha caseeye indhihii yalowku noqonaya waa xanuunadii waaweyn dilaaga marka maxaad kaloo haysataa marka oomateedkii oo kaa xirma iyo miisaankii oo lumisid haddaad isku aragtid beerkaaga oomateedkii kaa istaagay haddana miisaankaaga hoos ugu soco so haddaad isku aragtid marka barar feeraha hoostooda ku bararaya haddaad isku aragtid waa beerkaaga maxaa kale oo isku arkaysaa waxaad isku arkaysaa garba xanuun garbaha ku xanuunaya khaasatan garabka midigta so waxaan sheegay beeryaradii sambabadii iyo beerkii habeenkii ku xigana waxaan sheegayaa insha allah baadi haysta iyo keliyaha mindhicirka yarka iyo mindhicirka weyn kabacdina wadnaha u dambaysiinaya soo dhawow shaakir iyo cabdulqaadir maxaad faa'iidaan caawa shaakir kusoo dhawo waa ka maqnaad wax yar waa ku hormarnaa jazaaka allahu khayr dadaal badanaa noo heesaaye kusoo cabdulqaadir waa kusoo sarta meeshay ka qurunsantao dhamacaa wada taabatay waxyaabaha aa faa'iido ani aada igu xiisaha badan waxaa waay baaraka allahu fiik dhammaan way wada xigmad badnaayeen meel badan oo igu taagtaaganay ahaayeen laakiin waxaa aada ii soo jiitay micnaha risiqa meesha aa ka helno boontigaas aada iyo aada iga maqnaa صح in sanbabada ilaahay noogu arsuqay oo waxa cunno ama waxa soo shaqaysanaa risiq uma leene ileen ka qaadashada caloosha waayaba risiqa
ها أرساق دادو سنببك كمسؤولة ها كل ما ما حد سنببك حدوسن شقية واد عرفت كل ما ها سنببك سنببكاas haddaysan soo marin waaba cudur oo haanta baqaar wax la soo geliyo laga bixiyaadnahay waxna ma ka intifaacin absolutely so sanbabkaas aad way ii soo jiidatay jazakallahu khayran iyo sida alla ugu xirta ayadana aad iyo aad oo dhanka diiniga oo ruuxiga ayadana wadada dheer oo 12ka maxaad bilood ah ku soo qeexday oo la maraayo oo mu'minka iyo munaafiqa ayadana waxa waaye jazakallahu khayran waxa jirta kutubada xataa aad ugu ma dheer waa fiiri xataa oo khaatimada lagu dara meesha ugu dambaysa kutubkasta ku jira qaybiyaadka iyo waxa la dhahaa samciyaadka waxyaabaha la dhageysto kaliya marka wax magacaasaba loo bixiyo waxa la maqlo oo sideeda jannada iyo naarta iyo lagu xifdiyo marka tartiibka u sameeyay ayadana aad u yacajibi macna oo qaanadaha leh waxaan geesna way iga taagnaayo inta ugu badan iimaankeena wuxuu quseeyaa oo hadda inta badan oo dadka marka cilmiga bartaan jazakallahu khayran waxay galaan macnaha waxa la dhahaa qofkaas cilmaani waa camal macnaha diintii oo toos uga hor imaana maxaa yeelay isla xiriirintii aad dib noqonayso oo maxaa yeelay asu wuxuu u batay theory wuxuu arkayo akhriyay oo ku falgala marka midaan kale oo iimaanka tarkiibkeeda oo laga sheegto waxa waaye wuu diidaa macnaha aakhira wuu diidaa macnaha inay hawshan jirtaan Hey, good morning. Why are there 6 people? hala wuu ka gaabsaday marka wuxuu yiri kan culimada xayisiiyeen saana janno ma aha dhahay si qof sidee waxa ka yihiin marka inaad detailyaarti soo kor istaagto ayadana waxa waaye ani inta ilamida waa ka bahay macnaha waa u baahneen qof kasto cilmi lehna wuu u baahnaa meelaha la taabata marka jazakallahu khayr ina ku dheeraad waxa uu keenayso هذا أرادي معناه كما يسوم من أصحاب القبور إن لسوق قال معناه لا قوما غضب الله يا صوت قالنا معناه أقرب ماشي هذا هذا الشيء ما بلغوا اهتمامه ما أنا لطابته كنت بدي مركزين في رسالة ولا بارتيا وحال هذا إله الله جنة على قال نارته على قال لكن ديب لقاس علماء قاسة قبرك مركز كرتة ذاتك ما وضح لك كران mana ka sheekay kara xayaata barzaqa hebel iyo hebel hal raadiya la yiraahdaa ayakan waxa la dhahaa talqiin ahaan wa ana aljannata haqqun wa ana an-nar haqqun wa ana al-ba'th haqqun kaliya laakiin sharaxa diibliga iyo nolosh ina qosayso iyo classification-ka ah ina muslimiintii
معناها كافر وقفك وح أسترو قرية الدهابة تضبط أيك إن تضبط مال كوسا أرت الدين أيضا نجس ويجمع مغنت وحنا حدنا سيدة دنسدي معناها أنت اللي سي قريان كافر محلو يريا مدحك تشعى يصاب هذا كافر معناه سوى وقف وح أستر تكفير السيئات إلهي عبت أنا أستر واي معناه كافر معناه كده كمتها مرقف كده كافر نقضة حتى نمعه دو إلهي سي علمي وأسترها مشي كرتدو كلها هذا العكس سي وقرنا مؤمن كان معناه استلت فيها بارك الله فيك علمي إلهي كسي الله كسي هذه وكف أنا سبناك وأنا سبنديجوسا صام من ماذا أنا رمسنته كمتها نفتقر بك معناه وكوف أنا نوع لك أنا صباح معناه أنا كوف أنا وحكمت أنا رمسنا هرت نمعه أنا هيست أنا أركيكر أيضا أنا مركو حواي جزاك الله خير ماشي أصلا حلا أو كم غلي على قدره ها ترى وكنت رحت جاي ما ده عبد القادر كلمة هذا كافر كلمة مؤمن هو معنى ليه صح من العربية صح مثل العلمية مربمت هدي العربية معنى يلانيسا فربان نعم هدي العلمية هل معنى يلانيسا لوضوضو صح الكافر وفرشه وقف حرق على كفرتي ايه علميا مع مركز ها كفر وفرتي وي ايه المؤمن وحوي وحريه ولا حرقي وكو حرن مركاد حرق كبحي كافر بنقل قد كفرت مركو حرقه ولكو وحريه حرقاس واكيه حرقاس واكيه أقول لا إن الله ما سنتها قول لا إله إلا الله توحيدك هذا هو حرق قول لا إله إلا الله جزاك الله خير معناها مرة وحكف إذا استشرح هذا اللين با إذن تصي لما حرق با إذن تصي مركز المؤمن كحرق ودح مرني كافر كان حرق وهوس مرني وكفرتي كم حرنا حرقه وبلا حرق جزاك الله خير مركي علمي جلسي بلا عشان وحوي قف حد له يمد حدكي كتري حدكي كتلاوي marka xarigu ku xiran yahay marka waa xadeysanta sababta waxa way xarigaas intuu ogol yahay kaliya ayaad gaari kartaa xarigaas intuu soo ogolayna ma gaari kartid laakiin kan bila xariga ah xad walbu gaari karaa in la ogol yahay inaan la ogolayn barakallahu fiik waxa dhahan intaada siyar xasuus yar oo sharax kooban oo Sheekh Mustafa ka maqlaba Allah khayr Allah ka siiye oo aad ii dhadhan galiyay ayaa ku dar laabis wuxuu maxaahad qofka markuu tawxiidka la yimaado waxyaabaha aad u xiisaha badan waxa ku jirta xarig Allah ku jira marka la dhahayo wuxuu yiri sujuuda inuu dhulka dhigo inuu ogolaado way hadduu diido waa tay culimadu u dhahaan macnaha salaada la dhaho ama xadiiska ama xeerka qofka salaada hadduu ka tago xarig Allah jaray macnaha wajiga inuu dhulka dhigo inuu marka hore foorarsado oo hogaansamo calaamada iimaanka iyo ashahaadka taliil u tahay tawxiidkiisa inuu wajiga foolka u qirro badna oo dhigana qirashadaas waxa la yiraahdaa maalin kasta yeel marka la dhahayo haddoosan rumaysneen rumayntiisii aa gaabatay marka taas waa mahadsantahay jazaakallahu khayran
inaad midaan kalena waxaa gees iga xasuusisay beerkeeraha habeen raatana inaa geeskaaga dhegeysta u maleynaa dambiyada la galaayo waxaa gees iigu timid waa mindhicirada way soo socdaan mindhicirada miya ha micnaha waxaa ka wadaa meeshaas haddaa soo baari kartana waa sarta meeshay ka qoran tahay horta dadka waaweyn way ku dhiiradaanoo ama qof ku dhow ama qof ka dheer ma samey laakiin hadda waxaa la arkaa waxyaabo yaryar caruurtii yaryaraayo dhalinyaradii da'dii hadda soo koraysay ayaa dukaamadii inay galaan ayakoo lacag wataan oo dhibaato qabin waxay jeclaada inay qaladaadka sameeyaan oo wixii soo qaadaan soo sidee looga reebi karaa layidhi waxaa markii igu soo dhacday meelay ka jiran yihiin intay ka daaweynaa madaxayga soo gashay boontig marka waxaa mindhicirada way soo socdaan marka jazaaka allahu khayran waa wax badanaa kaa faa'iido waana wada qoray waa ku sii ceshan doonaa waxaa caawa idin sheegay xubinta isaaqada xubinta go'aanka waxaan kaloo idin sheegay xubinta beeryarada maxaa idinku yiri saddex baan idin sheegay caawa habeenka soo socda waxaa idin sheegi doonaa xubinta cadaaladda kow waxaan kaloo idin sheegi doonaa keliyihii waxay ku qabtaan xubinta xishoodka every single xubin kastoo jirkaa ka mid a ilaahay shaqo gaar u dhiib jirka u hayso oo iyada looga dambeeyo oo iyada lagu ixtiraamo oo iyada ay mas-uul ka tahay beerkaa noo dirta noo faa'iidee control maa dhahda beerku waa go'aan qaadasho raggu beerka go'aan ka qaataan haweenkuna xameytida saa darteed bay isku dhegan yihiin soo labadooda wayna kala hooseeyaan raggaa sarreeya xameytida hooseysa subxaan allah ilaahay abuurtiisa haweenka xameytiga ka qaataan raggu waa beerka haweenkuna waa xameytida saa darteed bay isku dhegan yihiin aabbe iyo hooyadiisoo kale oo beerkaa sarreeya xameytida hooseysa saa darteed bay raggi waxay yihiin qawaamuuna cala nisaa aayadda qur-aanka halkaas ka imaanaysa so marka beerku marka wuu fooraraa markuu fooraro waxa hoos dhulka maraya arkaa hoos laakiin kor ma arko saa darteed haweenaydu ma foorarto kor bay eegaysaa saa darteed ragga iyo haweenku farqa u dhexeeyaa waxay tahay ninku waxa dhulka yaallo arkaa ma jirto haweenay odhanaysa waxaan dhulka soo helo never koonka intaad ku nooshahay heli maysa haweeney ku odhanaysa dhulka waxa yaalan soo hela never laakiin hadday buur saaran yihiin gaari dhakis hadday saaran yihiin diyaarad hadday saaran yihiin way soo helaysaa wada sidee ku keenaysa ninkuna waxa laala wax dhulka yaalla horu ka soo qaadaya laakiin waxa laala wixii kor oo dhan ma arki karo waa in haweenaydu tustaa isaguna waa inuu haweenayda dhulka waxyaalla tusaa labadooda marka beerka maadaama uu koreeyo asigii way arkay asna isagu wuu fooraraatee hoos buu eegaa idan ma foorartay kor bay eegaysaa saa darteed ba adigu markaad xaaskaaga mukhaadaba la hadal aad wadaagaysid ayaa waxaa la rabaa inaad hoos u eegtid iyaduna kor ku eegto saa darteed ba 24 hours raggu markii haweenku raggooda ay laabta ka soo galaan ayay korsaa ugu eegaysaa isaguna hoos usoo eegaya markaad haweenaydaada la hadlaysid waa inaad kor ka soo eegaysaa iyaduna hoos kaa soo eegaysaa markaas waxaa imaanaya markaa dareenka saxda oo dhabta oo saasoo ninka inuu ka dheer yahay kor u dayasan ay ku jecel yihiin aldhaa cilmi kale so adiga marka cabdulqaadire markaad haweenaydaada intaad hoos fariisatid kor u fiiriso
dad hoos fariisatid ad hoos ka fiirisid oo markay kaarkaagu gubtay kaarkaaga goonay kaarkaaga goonay oo inaad kor ka soo eegtaa meeshaas baraati ka dhig tusaalana keen batitoro oo meesha sarta ku qorantee oo inaad kor ka soo eegtaa so ilaahay wuxuu yidhi aayaddan inta ugu faraha badan lagu galgashay waa lagu galgashay dee saa'id baa lagu galgashay galgalasho aayaddan inta ugu faraha badan ragga la hadlaysa oo ilaahay ragga kula hadlayo oo qawaamuuna cala nisaa dhammaystira inta ku xigta ku dara الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض stop marka waa taas marka waxaad u baahanta maxaa ilaahay uga fadilay بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بما أنفقوا من أموالهم صدرت بيت وحاول نinku waa go'aan qaate og meesha maal iyo wixii la bixin lahaa laga helay haweenayduna waxa weeye waa go'aan sugto meesha maal iyo wixii la soo helay laga qaadi lahaa tusaale markaan ku siiyo waxa weeye ninku mar walba waxa weeyaan waa raadiye soo hele haweenaydu waxa weeye waa sugto qaadato صدرت انت بيركي isagaa soo shaqeeya xamaytida u dhiibaa oo muxuu xamaytida u dhiibaa dheecaanka ugu muhiimsan jirka oo dhan haddii la waayo wax jirkaaga hawl ah oo ka suurtagelaysaa haba yaraatee ma jiraan aduguna waxaad samaysaa waad baxdaa waad soo shaqaysaa iyada u dhiibtaa wax allaala waxaad soo shaqaysay oo dhan oo muhiimka ah sabab say adigana kuugu noolayso nafteedana ugu noolayso ilmaana ugu noolayso soo xamaytida maxaa loo dhiibaa dheecaan maxay ku qabataa dheecaankaas waxay ku burburisaa dufankii beerku laftigiisa ugu noolaan lahaa allahu akbar oo beerku dufanka la'aantiis ma noolaan karayo wuu dhimanayaa oo every haweeney kasta ama every nin kastoo beerka ka xanuunsan waa bilaa dufan oo muxuu sameeyaa beerkiinu markaa brotiin buu cunay dee waa nin cunay adoo hilib nin lagu cunsiiyey la ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo sababtoo ah waxay la mid tahay adoo cabdulqaadir oo reer leh saaka shaqo tegay oo aan santi soo helin oo haweeneydaada ku soo laabtay ha noqon heeryadiisa cune so xamaytidu maxay samaynaysaa markaa dheecaankii loo dhiibay ayay ku daraysaa cuntadii aad soo cuntay si dufankii ku jiray loo burburiyo oo dufankaasee la dhahayaa mindhicirkaaga yarkaaba laga qaadayaa xaggee la geynayaa beerkaaguna muxuu samaynayaa intii loo baahanyo dhiigka ku darayaa intaan loo sax waa guba so raggu maxay sameeyaan way soo shaqeeyaan adeegga loo baahan yahay bay haweeneyda u dhiibaan lacagta kalena xagee geeyaan haweeneyda u dhiibaan maxay sameeyaan waa guban way kaydiyaan sababtoo ah beri su-aasha ah ka jawaabisteeda ugu fudaato saa darteed ma arkaysid haweeney ninkeeda akoonkeeda haysataa raggu ayaga akoommadooda wada haysta waaba necab yihiin xataa waa abuurka alle dee wax khaldan maaha waa saxanta inuu ninka akoonkiisa haysta wax khaldan maaha waa saxanta waa abuurka alle ma waxba maada khaldan markaas laakiin waxaa khaldan inaad akoonkaaga haysatid haweeneydaada ka qadisid miyuus waxay la mid tahay beerkaagii oo akoomadiisii haysta laakiin wixii isaga lagu quudin lahaa
diiday xameytida u diiday diiday بارك الله نورمال مادك سيدا ugu dabaqday cilmiga جزاك الله خير وانا رن meesha aan ka boqnaaba sidaas waxay tahay in diintii iyo ruuxdii iyo jirkii in la isku dabaqo maxaa yeelay go'aamada ugu badan oo la kala qaadan lahayo waxa waaye kan yaa u talinaya kan yaa bixinaya kan ayaa yeelay haddii naagta shaqo loo diro dhibay ku tahay guriga inay joogtaa ku ran meel kale aad ka fiirin baa hadda idinku daraya saw aragta Cabdulqaadirow ninkii markuu beerka ka xanuunsan yahay haweeneyda xameytada ka xanuunsanta waa kala maroonoshin haddana isqabaan macnaha waa lagu go'o meeshaas inta saas u badan yihiin qoysaska isqabo Soomaalida sabab ogtaa marka waad garan kartaa sabab ogtahay baa idinku daraya so ninku markuu beerka ka xanuunsan yahay haweeneyduna xameytada ka xanuunsan tahay maxaa dhacaya waxa dhacaya kow waxa ugu horeeya dhacaya waxa weeye kow waxa ugu horeeya waxa dhacaya waxa weeye xarigooda qabitaan ayaa kala go'aya waa maxay consequence waxa weeye in lagu kala tago caro iyo dagaal ee aan lagu kala teginin maxaan lagu kala tegaynin go'aan iyo qorshe بالمعروف أو بإحسان arkaysaa haddaad ii soo qabatid koonkan lacag baan ku bixinayaa uma wallaahi soma dhaaran 2,000 oo yuuraan bixinaya u dhigantaa 2,500 ayaan miiska saaraya haddaad ii soo qabataan ii keentaan 2 qof oo Soomaali ah oo markay kala tegayeen ku kala tegay bimacruuf oo bixsan tabtu u aroosay oo farxadda ahayd iyadoo farxad leh u wareejiyay mas'uuliyadeedii oo dadkii inta isku yeerayeen walaashay shalay calafka isku kaya galay farxad bay inoo dhaxaysay maanta calafka iyo farxadeedii waa dhammaatay macruufan ku kala tagayna markhaati ka ahaada ama axsaan ku kala tagay oo inta dadku yeerayeen walaashay xanuunkaas darteed ayaan ula noolaan karaynin oo warqadeed u siinaya iyaduna iga aqbashay inta asagu yirina iyaduna tiri بإحسان لبدا دين تبنيسا إن لسكو فرو لبا قف أو سوماليا وكو كلا تكتتالي كنتان $2,500 بيغا شغل ميسكا ساري لبا ميلكم ولا أنا مدونا هاي كحالة كتي هبين كحالة هاي تجي أنا صايشا وهبين كحالة هاي تجي وقر تتروح وإن لبدا قف مروال عنف كل حجرة مركزت مد بقرني أنا إلهي كوهري عفل مساعي قطعي اسكتك لبدا قف وخاصة إن عنف كل حجرة هذا كوتو هل عدا مقلي انت ددك لا تغا أركاي عدك marka maqlo waa raadiye ninkii aa wareystay waxa ay dhinaad ina gabadhi soo as u fasiray ina u fasirto wadada ugu fiican oo macnaha oo had Yurubtaana ku noolaayeen magaalada waxa wadada ugu fiican oo xogtii u soo gaartaa waxay ahayd in la wada fadhiistay in ilmihii iyo noloshiisa u wada wadaag lahaayeen la qorsheeyay arrinkii ay isku qabteenna ee qeexeen waxa ku kala tagayna sababta noocaas tabashada noocaas aysan ahayn labadooda midba midka kale uusan caynin uusan aflagaadeen go'aanka noocaas hadaa qaadanaysid kuguluma jiro anna go'aankaana ku adkaystay dhacday marka way soo dhawaatay laakiin dhankii kale xogteeda ma hayo waana nu wada adag tarta waa waligii sheekada ku maqal qolada ku dhaweeyay qoladaas never ever inaad soo helaynin
تبت ألا أوير وكوكالتك بمعروف أو بإحسان نبر سا أرسل وقع بكشان ولكن ما وقع بكشان فرتان كينا وقع بكلي وقتنا لك ولا ديدا marka go'aanka ay ka gaara xataa dad diido كينا وقع بكلي سا أرسل وقع بكشان فرتان نفر إن سهل كرت آية القرآن كان وتر مركب بمعروف أو بإحسان سيدا مركو هراء عام كوغا دكتاي إن تقول سنة زكوادان مركب كرت سامنا سيدا كلونا عام كوغا دكتا إذا فرحت إيو وناك إيو ولا تنو لحدين كم وقت ومدي كلام مرخات كيه تدسكو فرحسن ومر wanaag iyo calaf isku galaytihiin hadeertaana wanaag iyo calafkoodii sii wadi karayn haddana laakiin raba inay wanaag ku kala tagaan macruuf si garasho leh si qurux leh si bilaadantinimo leh hadday ilmo isu dhaleen iyo hadday isu dhalinna mar walba is xariirinaya oo dadka iskaga dhow dad calaf isu galay ah si diinta ku tiridee bimacruuf ama biixsaan ma huwa alixsaan ما هو الإحسان؟ أنا حاجة إلهي سبحانه وتعالى إحسانك جاي وأحسن كما أحسن الله إليك وأنا داق أحسن الله إليك إن سيد إلهي دي كو وناجي قف وناجي ساه أديكو أو نورشي كالا دحيس المركاه وانا كو دماني يا أصحان never إنا تسهلين waxaan yaqiinteeda iyo waasheeda ayay taas sadarteed ma ku suurtagelayso inaad qofka noqotid ma ku suurtagelayso inaad aayadaha quraanka rumaysid oo wadada mar ku dheheen aad martid la ajli duusan beerkaagu caafimaad qabin beerkaad haddoosan caafimaad qabin la ajli haddaad haweenaytahay hadday saxamitada caafimaad qabin nacam soo haddaad jirkaan aad sidataan u qabtaan marka waxba yahay kitaabka quraanka baa waxa kitaabka quraanka isaa ka muhiimsan jirka ka muhiimsan sababta ujeedada dhan maqsuudka dhan qastiga dhan tacbiirul fanniga dhan kitaabka quraanka loo soo dejiyay waa jirkaaga sadarteed baa laga soo hormariyay isaga kana soo horreeyay sagaal boqol 77 sano ayuu ka soo horreeyay kitaabka quraanka جزاك الله خير تتر عاد كشكين زمان الله عندكم كحنونسن حبني كتابكم قرآن كلا وتر كاي يذكر كتاب القرآن كدول تاجنتين تح يدفننا كما دح قاعد كرسا وتكون دول قلاشين ما كرنا سنة عماش شقيسنا سنة عاوة على وحي حكمي صوت حبني ترين كايدن سين لها حبني فهم كايدن سين لها وتكحن سنتي تكتشرنتي arrin ruuxi ah wada gashay oo diinta qusayso arrin yaro isoo martay aan wax yar ku dari rabay cabdiqaadirow aan siiyo laba gabdhood walaalaha kor saaran safiya iyo aamina ila joog hayga tegi qayrlaa kusoo saacadii bar kale sii joogaya so safiya soo dhowdo cabto safiya مصفية مسوا سفلاي وما شفت waxaan soo dhaweynaya walaashay aamino haweeney wax baratay ah maadaama qoraalkeed arkay aamina assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu doctor isim aad iyo aad u mahadsan tahay caawa ay soo qabatay in badan aan horta maxaa dhahaye aan isku dayay marka waa heli marka caawa wax badan horta waa ku duceey farxad inta ii kala badatay waa in la daraan dare yaa Soomaaligeena bid rasti waayna iga raali noqo tartiibtaada haddaad guriga ku jirta daaqada fur oxygen qaado galaas biyo soo qabso isku fur markaa in jirkaagu markaa uu qaato oxygen kadibna waxaad awoodi karaysaa in codku kaa soo baxo
horta waxaa sheegtay waxa exactly marmarka qaarkood markii aan dadka qaarkood u sharxa saasay jirtaa ladhaha medicina ayurvedic aan talyaaniga ku bartay aan beauty therapist aan sameeyaa nutrition aan sameeyaa marka maanta ugu dambeysay gabaraa waxay igu tiri amin waxaan u baahanahay nails manicure in lay sameeyo markaas itaan ku yiri aniga manicure aan sameeyaa oo different type laakiin ma sameeyo nail technician application markaas itaan igu tiri what is different markaas itaan ku yiri acrylian gel bla bla dhana jirto sababta u sameeyo xitaa rinjiga ma mariyaan ku yiri markaas itaan tiri why because muslimaata maya because cijaha inay breed gareeyaan ay u baahan yihiin blood circulation ka kidnigaaga everything laga arkaya marka waxaan aniga nafteeda aanan u sameyneynin kuma sameyn karo walaala iga ma sameyn karayo ha mamnuuc markaas intay igu tiri gabar eeshaana way sameysaa why adiga you make the thing so complicated markaas intaan ku yiri everybody free to choose their life to complicate however they want bas sheekad markaa intaan sii galin markaas intay tiri meeqa noocaa sameysaa 3 nooc express normal iyo luxury markaas intay tiri maxay kala yihiin kulli kuma sharxi karayaan ku yiri hadaa ratidna saaca waqtigay soconaysaan kuu sheegaya marka waxaan ku keenay ereyga adiga dhahday absolutely imagine oo dhahday qofka dumarka maxal dhahaye inay kor ku soo fiiriso ninkan uu hoos u fiiri de maalintii other way round ee naqato cagsigeeda ee naqato qofkaasi xushmad ma u heynaysido wuu ka dhacayaa qof kasta uu ahaado ilaahu mu adeerkaaga adduunyada ugu jeceshay ahaado xitaa inaan la hadlona telefonkan xitaa kama qabto Dr. Isimo what kind of man and I embarrass myself in adeer ii naqatay am waalid ii naqatay markaasaan weena waa wareersan tahay naga aamus adiga waxa jinigaani soo baratay ku soo waaleelda aragnaan ku yiri labadeen ninkii waalan maybe ku waalan ayga miir qaba maanta dhahay ku kale tofiyo banaanka laafiyoona maybe ayga waalan marka aan isbedelno aad iyo aadaan u mahadsantahay sidaa dadku u gelisid oo maxal dhahaye u inform gareysid hurdada oogu soo toosisid anaga marmarka qaarkood horta waa abdaalnay dumaraan nahay waana la yasaay especially Soomaaliya hadaan nahay taas waa ugu badan tahay waa la kala daran yahay leemahan lama kala roonay waa noo heelisay ilaahay ku heeliyo horta ani aamina ahaan aan ahay si kal ilaab ahaan kugu duceeyaa sujuud iyo soo jeedba adigoo adduunyada saaran thank you hal su'aalna waa rabaa inaan ku weydiiyo please waa ku follow gareena igu soo celi waxa su'aal yar aan ku weydiiyaa oo adiga dhahday aniga aan la yaabay macna ii sameysay dadka markay xanuunsan yihiin oo daalka ka bato exhausted ay noqdaan maxal dhahay naftooda iyo ruuxdooda is aragto dejin bay arkayaan waa la hadlayaa kan waa oo qofkan carada intay ka badato uu wixii cabiri waay warheed qof dhagool oo Chinese ama la hadlaysa maba ku fahmay maxaa isku wareerinaysa marka meesha ka hadli lahayd ba qofka waxba u soo qabanaysa waa ku dhuftaan amba way ka leexdaan marka dadkana si ay xigmad ay u arkaan ilmaha yar yar iyo dadka xanuunsano mental ku jir runtii ma xanuunsana aqliga ay qabaan waxyaalaha qaarkood ay sameyn kareenin maskaxda aysan galeen 6 bilooda meel reception ka ahay mental health center ay tahay waxyaalaha aan ka soo faa'iiday aqliga diida meesha waxa ku qoran if you go there xitaa shaqale your own risk al dhaha anigana waxaan ku dhiiriday in cunugeyga uu yimaado oo maxal dhahay qof aad loo yaqaan la jecel yahay inay imaato meesha meeting ka qabano cunugeygana uu imaado jidka markaan isku aragna intay salaamaan Amina hi saatahay how are you this is your son bla bla ilmaha ee dhahay markaasoo ilmaha waalid waxa intuu fiirana kaal horta adiga markaa meesha gashid ma badan baa shidata saas u wareejisa switch on gareysa hadan markaa ka soo bixisid you switch off and say normal u naqatid marka waa run maxal dhahay qofka markuu daal marka waxaan kaliya aan ka rabaa inaa ii sheegtid maxay ku kala duwan yihiin ruuxda iyo nafta سؤال مهم عبد القادر سؤال أسألك بوجو بوجيه
هذا كور روان شيء عبد القادر إلهي خير هسي أسيقنا ما شاء الله أبيو haddii aad u مهرب baahan tihiin haddii aad u baahan tihiin markaad rag tihiin su-aalaha fiican in laydin weydiiyo u daaya haweenka doorka su-aal weydiinta iweydii ku dhaxaa jeedaada wax walba bal duca qabta kaalayo maanta su-aale iweydii wax aan ka jawaab iweydii waxay ku weydiinaysaa su-aalaha ugu muhiimsan caloosha gurigiinna ka dhibaataysan dhexda ay la soo baxaysaa dhac ku weydiinaysa adiguna markaasaad ogaanaysaa problem meeshu ka jiro iyo xal walba haddaad siisid fursadda xaajiyadaada inay su-aal kugu weydiiso ama communication kugula samayso haddii beerka ku caafimaad qaba farqi u dhexeeya ruux iyo naf horta waxa weeyaan labaduba waxa weeyaan alle ayaa ina siiyey alle ayaa inagu abuuray inagu afuufay inagu programshay midna waa nalagu afuufay midna waa nalagu programshay so annaf marka way ka duwan tahay ruux waxay kaga duwan tahay marka annaf mas-uuliyad baa fuulaysa الروحنا واحد مسؤولية مسارنا ولي ما عنينا بدي هنا أملينا هاي وصي وضيع سيف عم دقست هاي آمن سيف عم دقست النف مسؤولية بصارن الروحنا واحد مسؤولية صار مجرد ليش صوت وحوي الروح waxbaa la siiyey annafna waxba lama siinin ee waxaa la yidhi wixii lagu siin lahaa ruuxda kuu haysee ka raadso midna waxbaa la siiyey waa haysataa midna waxaa lagu yidhi waxba lagu siin maayo ee wixii adiga lagu siin lahaa ruuxda lagugu dhiibaya ka raadso inay raadsatana ilaahi subxana wa tacaala u fududaysa u raadsan lahayd sabab hogaamisaa laga dhiga so ruuxdu waxba ma hogaamiso naftuna waxbay hogaamisaa waa qaa'id haddii la rabo marka inay naftu wax hogaamiso waa inay ruuxda wixii loogu dhiibay ka raadsataa si saca wax ugu raadiso kullamaa naftaadu marka ay ruuxdaada ku xiran tahay oo kullamaa tawfiiqdaadu ay toosan tahay kullamaa naftaadu aysan ruuxdaada ku xirnayna oo kullamaa tawfiiqdaadu ay qarribanta so waa maxay wax ruuxdan baas loo dhiibay marka maxay ruuxdu haysataa waa nafta la siin ee lagu yiri ruuxda ka raadso adiga laguma siinin maxay haysaa nafta ee ruuxda maxay raadinaysaa naftu oo ruuxda ka raadinaysaa ruuxda alla wuxuu u dhiibay koow waxa ugu horreeya waxa weeyaan alcaqlu alcilmu alcaafimaad aliimaan كلما ay naftaadu marka ruuxda u tagto oo kulama aqliga helayso cilmiga helayso caafimaadka helayso iimaanka helayso kulama ay ka leexato oo kulama aqliga waayso caafimaadka waayso cilmiga waayso xagal waaysa iimaanka nusqaamaya so markaas aayadda quraanka aad waa marka ilaahay ku kala qaybiyo 1 2 3 buu kaaga dhigay soo marka kuwan aan kuu sheegay marka hadda afarta anu aan kaaga dhigay saddex bay noqonayaan laba isku dhagan saddex bay noqonayaan marka fiiro marka aayadda quraanka waa tan marka nafti waxa la yiri mar ayada ku lagdaysa mar aada lagday macnaheedu ay tahay marna ayada ku hogaamisa marka ku hogaaminayso ad wax ka jirta illa taaganta ruuxdii bay ka xarig furatay hawlaheeda qabsataa markaad faajirka tahay mujrimka
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. so فلا أقسم بالنفس اللوامة. لوامة مرنا وكردي سمر هذا ردي تطور أخلاق أنت قلي. so وصو صعدها إيمانسا so مرة محل نقنسها أمارة مرة إمارة mid adigina kaa xargoosatay iyaduna waxba isugu oolin luntay tagtay xarig goosatay taas gaalada ku jirtaa marka iyo munaafaqa laakiin adigu kuma jirto markaad mu'min tahay so adiga maxaa kugu jira markaad mu'min tahay marka mudma'ina حتى مركا ارجع إلى ربك راضية مرضية. راضية المرضية. الله أكبر. معناها كتير ماشي محيط مركا معناها كتير وحيتها سيدي إلى هاي روح البروغرامية يس أنا جيت أنا قراعة. So, good. So, الروح مرك. أنت نقف كنفط الوقف في القهر. أي إلهي سبحانه وتعالى دجيه. الله كليه. أي أنا وحرد. كلا أو وحكة بدري كرسا وحنا قدر كرتاج. الروح الأم بحرنت عيد وحكا بدلي كريسا وحنا قدر كرتا مجد وبروغرام كالله نفتن والقوة أفو فكت مركا وقعوا له ساجدين نفتن على ديبا مركا إلهي وحو ديبا قائد هقامين كريا هيستا مسؤولية لن هيستا وينو وحقامي سه ruuxdana waxa loo dhiibay wixii kale oo nolosha muhiimka ah ee naftaanu ee wax ku hogaamin lahayd kamid tahay aqligii cilmigii